السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا قناة كنا مرة مرس دحاد با واتحناه نهالية أوروكا إسرائيل قيبتي سيل لبي طبنات وحرم وخلقنا كل فجورينا تاريخ نولات مدن محمد فارح يلولي ها حوينتي طبنات هالية أوروكا إسرائيل انت عن مخالقنا جود قليل فضلا سبسكرايب صار جنرالك لاك تنتابس سينا شير قري wuxuu ku dhashay mudane maxamed faarax ilowle magaalada mareeg dhinaca ceel dheer ee gobolka galgaduud sanadii 1925kii aabihiisna waxa uu dhintay isaga oo 3 jir ahaa markii uu gaaray 10 sano waxay hooyay la timi magaalada muqdisho wuxuu bartay quraanka kariimka iyo mabaa'idda diinta islaamka wuxuuna ahaa wiil firfircoon oo u soo jeeda danihiisa iyo waxyaabaha looga baahan yahay taas oo ay duruufaha dhaqaale ay diideen in ay ka muuqato firfircoonidiisa wuxuu galay iskuulka Talyaaniga ee hoose isaga oo ka bartay luqadda Talyaaniga iyo qoraalka wixii laga heli karay wadanka xilligaasi sanadii 1937kii xukuumadda Talyaaniga ee wadanka haysatay waxay u magacaabaday in uu karaani ka noqdo mid ka mid ah xafiisyada qaybta caymiska bulshada wuxuuna jagadaasi ilaa ay ka bilaabatay dagaalkii labaad ee adduunka kaas oo sababay in ay kacaan dadyoogii la gumaysan jiray ayna jabeen dawladihii heshiistaha ahaa kadib markii ay qabsatay xukuumaddii Ingiriiska Soomaaliya wuxuu galay iskuulka ay xukuumaddii Ingiriiska u furtay shaqaalaheeda una ka bartay luqadda Ingiriiska markiiba wuxuu noqday shaqaale rasmi ah wuxuu ahaa xubintii 10aad ee mid ka ahayd xubnihii 13 ee aasaasay xisbigii midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed